السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada koraskeena ku saabsanaan doona barashada kombiyuutarka weliba waa basic computer. insha Allah koraskan wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr iyo 30 cashar kaasoo guud ahaan ku saabsan barashada kombiyuutarka asaasiga ah. koraskan waa koras ka kooban ilaa dhowr iyo 30 kaas oo noqon doona in qofkii kombiyuutarka haysta doonaya inuu barta inuu ka faa'iideysto insha Allah taala. kombiyuutarka markaad baranayso laba weeye. mar waa inaad book inaad haysato qoraal ahaan aad u baranayso, marna inaad practical u baranayso. anagu waxaanu sharaxayna waxa weeye waa qof kombiyuutarkii haysta doonaya marka inuu barto practical ahaan inuu barto. marka ugu horeyn kombiyuutarka aynu sharaxayno ama windowga aan wax ku sharxi doono waa windowga 10aad sida ka arkayso. windowska 11aad baa ka dambeeyay kaasoo ilaa 2 sano meelaha hadda jira, balse windowska 10 ayaa inta badan la isticmaalaa. sidaas awgeed asagan ka bilaabaynaa dabadeed ayaan ku xujin doonaa kombiyuutarka windowska xiga ee 11aad. waayahay marka windowskani markaad kombiyuutarkaaga soo kiciso soo daarmo waxaa ku soo bixi doona faceka noocaana ama desktopka halka noo soo baxday muuqaal ahaan Windows 10 waxa lagu yaqaanaa fiirsumada ay lagu yaqaanaa sumada dad aragto Windows iskale Windows waxa weeye 10 ayaa iskale. waxaan doonayaa markaad kombiyuutarkii soo kiciso ku soo baxda shaashadan maxaa lagu magacaabaa. shaashadan ka soo bilow geeska ilaa geeska ku keen waxaa loo yaqaanaa maxay desktop ayaa loo yaqaanaa. marka desktopka idan ka bilaabayna uu horeyntii kadib ayaan gudaha u sii geli doonaa. markaysan kaarsiga halka ay nooga muuqda falaarta taas markaysan halkaas ayaan waxna ku siinaynaa click right click ayaan ku siinaynaa. horta click iyo right click ayaan kala baranno. markaad kombiyuutarka isticmaalayso mouse markaad u isticmaalayso mouse kala wada faraad saarayso dhinaca bidix click baa lagu magacaabaa click ama left click isku mid weeye. dhinaca midigna waxaa lagu magacaabayaa right click. haddaba falaartii halkaas aynu saaranaynaa meel bannaan oo desktopka ka mid ah. markaanu saarano oo right click ku dhahno waxaa inoo soo baxaya boxkan yar ama warqadan yar waa view sort by refresh basti shortcut new display settings iyo personalize. marka iconadan halkaan ku noo yaalay ama desktopka inoo saaran ayaynu wax ka bedeli doonaa. markaad wax ka bedelayso amaad qarinayso amaad yareynayso amaad weyneynayso amaad u qorayso amaad u kala hormarinayso qaabka nooca ay yihiin dhammaantoodba halka ayaynu ku fiirinaynaa. waxaad tagaysaa halkaa bannaan right click aad ku dhigi doontaa qaybta ugu sareysa ee viewda ayaad dul saaraysaa falaarta waxaa kuu soo boodahaya warqada kale markii taa kuu soo baxdo qaybta ugu koreysa markaan doorano large iconada halka inoo saaran waxaan icons baa lagu magacaabaa. iconada halka inoo saaran dhammaantood waxay noqon doonaan kuwa large bal aynu tijaabino viewna dooknay kadib large aynu kali ku siinay. sidaas bay markaysan dhammaantood sidaas iga weynaadeen. si aan dib ugu celiyo waxaan raadinaynaa meel yara bannaan oo ka mid desktopka right click ayaan ku leenahay view ayaan ka dooranaynaa. markii view ka doorano kadib waxaan dooranaynaa small icons. markaan small ku dhifano dhammaantood aad bay u sii yaraadeen intii hadday ahayn xitaa way ka sii yaraadeen imikatan. mar saddexaad sideen ku soo celinaynaa view aynu tagaynaa dabadeedna medium icons ayaan ku dhifanaynaa si dhexdhexaad inuu soo laabta. marka viewga koob shaqadaas ay ku qabanaysaa. shaqada labaad ay qabanaysaa waxa weeye view aynu dul tagaynaa haddana halkaan u fiirso oo tigta saaran tahay oo auto arrange icons lagu magacaabayo. control panelkaas markaan soo qabto shaqada qabata ku sheegi doonaaye oo aan left click qabto dabadeedna aan soo jiido halka aan ku daayo ma yeelahayo. markaysan uu laabanayaa icon kasta aan soo jiido oo halka dhigan maago ma yeelahayo. sidaas awgeed si aan u gurisiiyo meesha bannaan baan tagi right click baan u dhihi view baynu dooran. markaan view tagno halka auto arrange iconska jaga saaran yahay ayaanu tirta ka qaadaynaa. kadib network soo qaad halkaas oo dhig uu yeelahayaa control panel ku yeelahayaa yela xoog uu yeelahayaa recycle bin ku yeelahayaa mid kasta aanu soo qaadno halkaan soo dhigano sidaas ayuu ku yeelahayaa. waxaad doonaysaa markaan dib u celiso markaan sidaa dib aan ugu celi lahaa oo sayska maqaabka ku qaldan ilaa yara waxa fiican halka bannaan uun tag waxaad tagi doontaa halka viewgii halkii ku laabo tagti inuu soo saar. markaad soo saarto automatically ayaga ayaa kula soo laabanaya position-koodii.
isla weli view baynu ku jirnaa markaan view tagna haddana hoos waxaan arkaynaa meel ay ku qoran tahay show desktop icons. Show desktop icons kani markaan tigta saaro iminka tan waxaan arkaynaa in icons kani dhammaantood halka ay noo saaran yihiin aan wada arkayno, balse markaan meesha banaan aan ku dhan right click dabadeed view halka hoose oo show desktop icons ka aan tigta ka qaadno dhammaantood wada qarsoomahayaan waxaad moodaa desktopka inaan waxba saarnayn, laakiin dib aan u soo celinaynaa sidee meesha banaan baan iska tagaynaa view baynu tegi halka hoose imaabo show desktop iconska tigta saar dib ay kugu soo noqonayaan dhammaantoodba. waayahay halka marka view aan ku dhaafno waxaan isla meeshii joognaa weliye halka hoose ee sort by markaysaan waxaa sort by markaad tagta flag ka saarto waxaa kuu soo boodahaya name size item t iyo date modified warqadda ay ku qoran dhammaantood markaa name-ka markaan u qorahayo amtana waxaan ka faa'iidayaa iconska halka ay yaalaan desktop-ka i saaran qaabka u kala horeysiinaya misla markaan dhaho sort by name markaan dhaho name ahaan ayay kala hormarayaan oo yaa name-ka qaabka nameska ay qoran yihiin ayay u kala hormarayaan markaan dhaho masalan ba size-na qaabka ama sida ay u kala weyn yihiin ayay u kala hormarayaan kana weyn sida aniga from left to right weeye kan dhinaca ugu yar kan dhinaca ugu soo jira ayaan ugu weyn marka adiga hadhow waxa laga yaabaa dhinaca ugu weynaado dhinacana ugu soo yaraado marka sidoo kale markaan item type dhahno nooca itemka ama nooca iconka si isku leeyihiin bay isku raacayaan misalan marka arkaysa dhammaan waxaa israacay wixii wordka waxaa israacay wixii pdf-ka waxaa israacay wixii folders-ka waxaa israacay nooca isku leeyihiin bay isku raacayaan sidoo kale markaan dhaho ka waran date modified waxa weeye yani kii ugu horreeyay kii ugu dambeeyay sida isugu date kale si isoo kala horreeyeen ay hormarayaan kana ugu horreeyay afartan misalan ama shantaanba computerka ayaa kusoo dego oo dhammaantood computerka ayaa wato waa icons oo computerku asaga marka hore ugu dhow wato weeye marka kana ugu horreeyay kanana ugu dambeeyay CapCut-ka ugu dambeeyay waxaa soo dejiyo saas awooda asagaas ayaa ugu dimbaray marka qaybtaasna sort by-ga qaabkaas aad ku qaban doontaa waxaa inoo xiga refreshku waxa weeye computerka markuu yara kaa cuslaado inaad refresh kaga samayso yani caajiskii computerka ayaad ka qaadaysaa refresh inta samaynaysaa kili baad dhihi doontaa deedna refresh ayaad dhehaysaa wakaasaa xogaa yara inuu fududaanayo ayaad markaas moodaa marka qaybtaas inaan fahmnay rajaynaya insha allahu tacaala next waxaa inoo xiga qaybta desktopka iconskan weli sharaxaad baa igu dhiman balse casharka xigeen ka dhigi doonaa waxaan u soo gudbaynaa qaybtan hoose ee desktopka ka hooseysa meesha ugu hooseysa taala waxaa loo yaqaanaa taskbar maxaa loo yaqaanaa taskbar waa geeska ka soo bilaab leadka markaysa ilaa geeska keen taskbar baa loo yaqaanaa taskbar markaas dhowr qaybood buu ka kooban yahay qaybta dhinaca midig ayaan ka bilaabay qaybta dhinaca midig waxaa loo yaqaanaa notification bar baa la yiraahdaa notification bar مثلا halkan waxaa inoo yaala wixii markaas applications aad misalan notification-ka u furato oo kale markii wax soo galaan WhatsApp-ka ugu furan oo kale halkaas ay soo galayaan notification-ki wixii ku jira halkaas ay imaanayaan sidoo kale waxaa inoo muuqda halkaasi taariikhdii iyo waqtigii ingiriisigii network-gii halkaas inoo muuqda sidoo kale asna waxaa halkan inoo muuqda dhammaantood waxaa loo yaqaanaa notification qaybta dhexe ee marka taskbar-ka waa qaybta aad adigu soo gashanayso iconiska ama application-ka adigu isticmaal doonta مثلا هذا waxaan badanaa isticmaal waxa weeye Chrome, Photoshop-ka, Adobe Illustrator-ka, Camtasia waxyaabahaas oo idil waxyaabaha aan post aan isticmaalo sidaas awgeed halkaas yaalaan marka u fiirso adna waad soo gashan kartaa bal aaniga gudbinay hadda aan kuu sheego qaabka u soo gashanayso waxaad u soo gashanaysaa taskbar-ka dhinaca waxaad eegaysaa dhinaca mid markaysa isma daawin dhowga start ee lagu magacaabo startkaas aad kali ku siinaysaa startka markaad kali ku siiso horta boxkan ama warqadani kuu soo baxday waa warqad ay ku wada jiraan dhammaan iconiska aad isticmaasho markaan warqad ku leeyahay meesha warqad ma taal balse faham ahaan un baan sidaa kugu soo dhaweynayaa marka waxa weeye iconiska ama applicationska ku jira computerkada ayaa halkaa ku wada yaal dhammaantood marka midka aad doonayso inaad soo gashato taskbar-ka u fiirso misalan waxaan doonayaa inaan taskbar-ka soo geliyo Camtasia 2021 oo kale asagaas markaad doonayso right click aad ku dhigi doontaa markaad right click ku tiraahdo halkaa ma arkaysaa more-ka ayaad taabanaysaa dabadeed markaad dul tagto pin to taskbar ayaad click ku siinaysaa dabadeed waa ka markaysaa si directia ayuu kugu soo galay muxuu kugu soo galay taskbar-ka marka si aan dib iskaga saaro asigaan dul tagayaa right click baan ku leeyahay marka right click ku dhaho waxaan ka dooranayaa unpin from taskbar
kii hore muxuu ahaa bin ku dhajibo kana waa aan bin waan ka saaraya marka sidaas ayuu uga baxaya marka iconiska anaa soo gashtay aduna ku adoonayso sidaas oo kale ayaad u soo gashan kartaa weeye marka qaybtan taskbar wuxuu kala kooban yahay qaybta searchiga ama wax lagu raadiyo iyo halka loo yaqaano startiga marka waa qaybta hadda arkayno weeye oo kala koobnaan dhinacan kale dhinaca waxa arkaysaa in power calc computerka laga restart garinayo ama laga deminayo iyo settingski file export videos music documents iyo magaca computer qofka iska lahaa intaba waa ka marka qaybtan ina waxa loo magacaabaa startkani marka midalan ba iconiska ama applicationska aan mostly isticmaalo in halkan soo gashan karaa sida u soo gashanaya midalan halkan waxa inaan ku soo daro CapCut marka raad kaliya ayaan ku leeyahay marka raad kaliya ku raadin waxa leeyahay bin to start meesha dayana marka tagaynay kadib aan ka dooranay bin to taskbar kaliya waxa leeyahay bin to start marka bin to start dhoo directly halkan oo imanaya markaysan qaabkaas aad u soo daran kartaa asagana way marka taskbarka taagan gudbin taskbarkani marka meel banaan tagto waxyar boqoto doonay halkaas oo log the taskbar raad kaliya ku dhigi doontaa halkaas oo ay ku qoran tahay log the taskbar hadii tag ku saartay ka qaad marka tigtiga qaada kadib asagoo meel banaan ka durtag left click qabo kadibna jiid halka u jiid dhinaca doonta sida ugu geysan kartaa ama kor baad geysan kartaa ama dhinaca ama hoos dhinaca doonta sida ugu geysan kartaa balse ogow markaad jagani aan ku saaran yahay ma qaadi kartid dhinaca uma qaadi kartid oo kaama yeelahay famisa kaama yeelay wayaan marka casharkan si uu dheeraan casharada xoogaa yara waan soo gaagaabinayaa ilaa 10 minutes ka badan ma doonayo markan waxaynu xiga casharka labaad ayaan ku soo xijin doonaa hadii la idmaayo intaan ku soo gudbinayo halkan waa bismillah tawfiiq salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh